horta bal marka ugu horeysa saddex ikhlaas aan walba ha akhriyo oo aan sheekha u hadiyeynina saddex ikhlaas aan akhrin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad samad alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in hada wa kulli waxaan soo gaarnay gabagabadii dad hadal wanaagsan aad iyo aad u wanaagsan sheekhana yaqaanay ayaa runtii meesha ka hadlay horta marka ugu horeysa waxaan u mahad celinaynaa dadkii ka soo shaqeeyay marka ugu horeysay fikrigooda oo ka soo imbisaaqay arrinkani kabacdina dadkaas marka jazaahumullahu alkhayr kabacdina sheekh muuse macallim xasan jazaahullahu alkhayr isaga arrinka maxad maartay dadkii ka shaqeysay arrinka ay isaga ku soo dhacday markii koowaad kabacdina aan anaguna la sii mushaarakaynay marka sheekh muuse runtii arrinkan aad iyo aad fadli aad weyn ayuu ku leeyahay dadkaan u mahad celinayno ayuu ka mid yahay marka arrinka hadda gabagaba ayuu inoo marayaa rag fara badan oo hadalka lagu qoray waqtiga ayaa saamixi waayey marka waxaan ka codsanaynaa in raalli ahaadaan rag fara badan oo runtii شمحة عبد كاهية هذه هذا محمد مارتي إيو شيخ إبراهيم سيدلي الشيخ يوسف توحمي ركفر برقدا شو عبد الرزاق مش عبد الرزاق وعذر دارتي خير الله سيو شو عبد الرزاق الله خير بدن سيو حقا وحبيري مارتي مركا والله دم على كين مركا إيو شو آدم محمد مع رقدا رق أو مارتي هذا الكادي مناسب وبقولك بقولي أهين مركا وكعذر داران إن أرنكا إسقاه الشيخ محمد معلم إذا الشيخ شيخ متواضع جدا ومطرح نفتيسا دولك دغ ايوها دواوحون إلهي سبحانه وتعالى كو غارسي ارماس markaas wuxuu yiri sheekhu aniga horta waxa Ilaahay ii furay ma dhihi kara biyo waxa Ilaahay ii furay anigu ma dhahayo laakiin waxaan ku sheegayaa biyo waa maanku yaani ajiibka hadalka wuxuu yiri aayad quraana ayaa igu soo dhacaysa markaas aayada tafsiirkeedan fiirin waxa laga yaabaa 7 macno inay aayadaas macaanideeda iga soo dhacday ugu suuraysanto qalbigayga markaas waxaan isleeyahay kutubta ka fiiri in maxad maartay macaanidii qalbiga ku sawirantay inaad ka heshid waxa laga yaabaa inaan marka ugu horeysa 2 ama 3 inaan kutub tafsiirka ku arko waxa laga yaabaa bilka bacd aanu akhrinaya oo quraankii inaan kitaab anoo daalcanay inaan kitaab ku arko haddana maalin kale ku arko min qaarna inaan weligay arkayna dhici karta biir waa intii ku soo dhacday qalbigi waa sida sheekh maxamed sheekh Abdullah ibn Hajmi oo ilaahay isagaba shaarix uma baahna marka ala kulli xaal marka sheekha dhinaca cibaadada iyo waragu sida ay sheegeen weligay ma arkin yaani cid lamida waa laga yaabaa laakiin weligay qofka cibaado badan sheekh maxamed ma arkin habeen kasta iyo maxad maartay mar kasta markuu khaali noqdo marban intaan maalin intaan sheekha inta salaamo oo assalaamu alaykum sheekh markaas uu san maqli laana maxaa dhacay waa maqan yahaba munaajaad kale ayuu ku jira qalbigiisa xaq ala jira ma fahmaysaa habeenkii dadka maxad waxyaabaha culumta aan sida hadda oo Sheekh Abubakar oo sheegay culumta aan sheekha laga faa'iideysto waxa kamid ah cilmul falaga hal qof oo baray ummalay ma sheekh wali ma aan arkin markuu aayaadka suuratul an'aam iyo maxad maartay markuu aqrinayo iyo oo fasirayo suuradan Yunus iyo markuu maxad maartay manaazilu shams wal qamar iyo markuu hadlayo wax alla yaabtid markaas wuxuu dhigi jiray dadka Soomaalidu salaada wixii tukan salaada casarku misaal u soo qaadan jiray salaada oo iyadoo maxad maartay ay dhiman tahay marmarka qaar 20 daqiiqo iyada ka dhiman tahay ay salaada tukadaan ba salaada casarka ما يسنجر وحياها أو هذا مواقيت كي هذا الله كان يوم حد مرت بريس ما يسنجرين شعب خير الله سيو حوجا سنسوي جري مركا على كل حال مركز محد مرتي وحسن علوم وإلهي سبحانه وتعالى عبادة أخلاق زهد ولي شخص وحيابا جعنتيسا قفك أتما ضيع إسكالحيد سيد هذا الرقبة كان واجهين تاسبوا كن غنمين مالين واحد من يسقوا عن شيلو يبيو يسقوا إسكو عنيا لعقنا وقت الله لكن العيت أسوق نفتي سو ما هي ضدك محد مرت مساكين تا أما علماء أما محد مرت هذا شو محمد يقول يا شو عبد الله منهاج وكل يعدي لمده أيو سينية يسقنا عن شيلو مالين محد مرتي أو محد مرتي يعني
wadaad oo aan saaxiibo ahayn oo u tagay warheed waan naxsanahay buu sheekhi waxa uu tagay yiri canjeelo la dubay oo qalalan iyo biyo isku kabanaya markaas maxad maartay isageena 100 kun oo shilin Soomaaliya soo sii ordo 100 kaas kun oo sheekh bal cid balmaanta dalka uu shid buu isagoo ku shidan maayo waxdanaba adduunkaanba hadoo wada kharaabo waxdana kama uusan lahayn mafahmisa marka barakallahu fiikum sheekha intaas runtii maadaama waqtigu dhamaaday ayaan maxad maartay intaas waa intii maxad maartay jazaakumullahu khayr runtii wax laga dhargayana maaha weligiis maalin qolooyinka ku taagan sida sheekhu sida raggu ay sheegeen dhamaantooda ishaareen waa sax oo khilaafaadka ma jecleen laakiin dhibka jira inuu xalliyo qasab mar walba sheekhu waa ku qasbana markii waxyaabo aqaa'id oo yaani oo iska eberkeeda markii dad ay yimaadaan oo wadwadaan dadkaasi maxad maartay ma uusan dhaafi jirin cid walba ay tahayba waxa maartay sheekhu waa geli jir waxyaabaha oo maxad maartay raggan hadda oo maxad maartay waa la ogyahay wixii muxaadaraadkii faraha badnaa oo sheekhu uu qabtay oo aan ka wada qayb geli jirnay maxad maartay waa tan goobjoog u wada ahayn masaa'ishii hadda la ishaarayo masaa'ishii oo dalaqo thalaadka oo kale iyo sax wax alla masaa'isha inkastoo sheekhu وسن يعني داع إلى المذهب الشافعي وسن ضد كليش المذهب كاسقات إسقى كليسة ما نجري لكن مسائشة أو مذاهب أهان ومذهب كاللوجس هو ضد ترويجية أرنتاس أنت دول استاجوا لي سمي حد مارت هذه حتى أدلته متكافئة هاي هذا القيامة وحول يجري عبادات أنت أساسا مثلا مركو هلا يو يسجبين تهذي مركو هلا يو هذه مالك قيامات هذه وحول محد أنت هذا صلاة أتكتي صلاة هذا إلى صحابة النبي ولا سو خلاف سنة هاي بالصلاة لكن هذا ويستوي أنت ناقطة تابت أدو يستوي الصلاة سو خلاف سنة مجرد بالبيجة يعني هبوا عقليا أنا أيو شيخه حدنا رحمه الله ودوين شري أحرمها صورا مركا وحيابها ومحد مرتي أن رنتي آدي يد وحيابها الرومين أنت صورا إن إلهي أقبلي وحكم ذا سيد إمام أحمد رحمه الله تعالى ولي جري وحولي جري موعدنا يوم الجنائز ولي جري ماشان كوب الله من ومالك مركان لمنه جنائزته مركي أن كسو قادني ميت كيسي بلي دوغل لقى صوب الله بلي دوغل لقى سو قارو قبر جيسة مال محد مارتي مال كستدد إياه تاقنا جيتك أي تاقنايين وكما رغاتي ددك محد مارتي وحيابا عجيبك ددك شيخ إنكري جري أو ردي جري أو محد مارتي ضائفة الدونة كثير سنادين وضد اسكا محد مارتي إلى قول والبا وضد كسب بحي مقتهي أو حسد أما سبيلاي وحكو جيران أيجي اللين أيا لوهبا مالكس إن بدن أو كمده وإليهن ما أنت أيا واحد انتي يعني أمضى الشيخ هذه ما أنت ودنتي أنا غار كهينا وضدك دلتك نجر مالو البردين جري شيخ مفهميسا مركا ميل استاغو جنازديسي مسك هدايه مركا ميل لو انت مسك بحسمي ايضا هذا مقاله dadka loo soo tagay ila afgooye ila warmaxan ila baashi maxaa la yiraahdaa mid ka sii sheesay magaaladii dhamaantood dadku saas u taagnayeen taasay u taagayeen ila idaacada jirbariga telefoonna saas samaysan jireen laakiin waxa jiray idaacado oo maxalli ah oo xagga soo maraya meesha soo maraya dhahayay ayaa jiray ala ay xaal sheekhaas waxaan rajaynaynaa annaga jeclaanta sheekh aan jecelnahay waxaan rajayn annaga dan noo tahay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka uu jecel yahay qalbigeena oo ka arko inaan jecelnahay ilaahayna subxaanahu wa ta'aala saas annagana ku jecel yahay oo nagu daro khaatibadeena oo khayr ka dhigo marka sheekha jazakallahu khayr horta bal marka ugu horeysa saddex ikhlaas aan walba ha akhriyo oo aan sheekha u hadiyeynina saddex ikhlaas aan akhrin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد لا
نفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران